haddana waxaynu insha allahu tacaala majaalka u banaynaynaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo aad wada garanaysaan. sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun soo dhowow, falyatafadal mashkuuran maajuura. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة درسيغو سوى كوبان وحكوسها بسيء شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبشدي نبي محمد ربي وعوضي القرآن كتالة الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض أي وحي نوسو النقلية يا مينوسو قورية وكتاب الله قيام الساعة الآخرين ينوغو شاقي عبشاء وعبنا يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إلهي وحلي سبحانه وتعالى الرسول كي يري يا ربي يو إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طلكي محيقال كي وحكي شيء القرآن كان مهجورا من الهجر أو الهجر كاتك كين طبع مد لغا قوري أما مد أي عبيان وهديان يسحري وحلا نوعا كتل مامان. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركاسي وحكا عبنيي نمانكي مشركين ها أو حق شيغيو أو كلامكي إلهي سبحانه وتعالى وقوضه oo iyaga dantooda laga hadlaya aakhiriya adduunba waxay ku badbaadi lahaayeen oo dhagaha ka furaystay. culimada muslimiintana waxay yidhaahdaan cid kasta oo ku dhacda hajrigaasi ama ka guuritaanka ama ka tegistaas ilaahay kitaabkiisu waxay soo hoosgelayaan kuwuu nebi maxamed ka cabanayay ee uu ilaahay uga cawday subxaanahu wa tacaala. كتابك قرآن كاهي وكتاب إلهي كتل ماما إنه يهي معجزة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب منهج النولولات وكتاب إلهي لي فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إلهي وحلي فلا تطع الكافرين نمانك قالت هدقي سنين يقوحي رباننا القرآن كان كتكتو لكن هكم مقلن با إلهي لي وجاهدهم به جهادا كبيرا. إساق كل دقال وين با إلهي تلمامية وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. دقال وين قرآن كل قلب إلهي لبدنا يدودا إنه أخرين نتنو نبي وكو عبنا يتن إلهي وحفر يبا لبدو بوسيرة الفرقان وصورة حق باطل كإلهي كلا صار سبحانه وتعالى. أيها الأحبة كلمات كان ربما مركا إن صوك وبويد هذا وحويان تجست لغا تغو كتاب كالله أما هجرة لغا هجروده اللو دكرا رعين ويا علماء وحيد هذا قابا بدن بيود عضا كو حكم دا بيدا هنا دقيسي سيا خرسكيسا كهجروتيد وبني آدم كما دقيسي وايد دي بديلون بي سمايستان انت القرآن كتغان أيون بي قارنا هاس إيا قبي إيا آدب إيا وحكا دقيستان قار فردي كدررك إيا دقالة ريرا إيا وحكا دقيستان بديلون بوقاتها بني آدم كدكتي سعيد لما فردده وحبا دقيسان إياه لكن waxay isweydiinta le maxaad dhageysanaysaa. idan hajrigu wuu noqon karaa bay culimadu leeyihiin maqalka quraanka iyo dhageysigiisa iyo dhagarraaricintiisa iyo rumayntiisaba. hajrigu wuxuu kaloo noqon karaa bay culimadu leeyihiin inuu ku camal falkiisa xalaashiisa iyo xaaraantiisa uu ka dheeraado walow haba akhrinayo ha rumaysan yahay. qofku quraanka wuu akhriyaa وانا الرميسين هي
inuu ilaahay kalaamkiisii yahay laakiin camalkii baan jirin hajriga waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan hajru taxkiimihi wataxaakumu ilayhi fii usuuli ddiini wa furuuci inay dadku ka dheeraadaan inay ilaahay kitaabkiisa isku xukumaan hadday tahay usuusha diinta iyo furuucdeedaba ama hadday tahay nolosha dhammaanteedba hajriga waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan hajru fahmihi wa tadabburi dadku inay ka dheeraadaan inay fahmaan oo u fiirsadaan waa akhriyaan laakiin waxay akhriyaan iyagoo aan macnihiisa aqoon waa akhriyaan iyagoo aan ku tadabburin oo isku dayin inay si fiican u gartaan ilaahay warkiisa subxaanahu wa tacaala waxay culammadu yidhaahdaan hajrigiisa waxaa ka mid ah inuu qofku bukaanadiisa ku daweeyo hadday tahay bukaanada qalbiga galiya kuwa nafsiga ah iyo kuwana caqadiga ah iyo hadday tahay bukaanada jidhka ku dhaca ee amraada cudwiga aba wuxuu ka tagaan soo duuduuba waxay leeyihin waxaas oo dhammi waa hajrin kale nooca bay culammadu sheegeen innagu ka soomaali ahaan mid waa dadyowga muslimka kuwa ugu roonroon unbaa baynu ku jirnaa malaha waa markay akhriskiisa iyo qiraa'aadkiisa iyo wixii la mida noqoto ugu yaraan odayga aan waxba akhrinini ilmaha dabadu ka kaxeeya wuxuu dhahaa qur-aanka soo akhri soo dhegayso soo baro soo qayb laakiin afarta kale intaynu ka isticmaalnaa aad bay u yartay ilaahayna wuxuu ina leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin qur-aanka waxaanu soo dejinnay baa ilaahay leeyahay mid ah shifaa min kulli marad hadday tahay amraadda bulshada ku dhacda hadday tahay bukaanada caqiidada ku dhaca hadday tahay bukaanada nidaamka ku dhaca hadday tahay bukaanada tijaaradda ku dhaca hadday tahay bukaanada siyaasadda iyo dhaqaalaha ku dhaca waa shifaa buu u yahay qur-aankani wax walba wuxuu kale u yahay naxariis dadka mu'miniinta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kurubaadka haysta iyo dhibaatooyinka haysta iyo dunuubtooda iyo waxaasoo dhan buu kaga maydha haddaba ayuha alaxiba hadduu nebi maxamed gaalo ka ashtakooday ow rabu samaawaati waalardi u ashtakooday waxay dhahaan naxariista nebiga waxaa ka mid ah nebiyullaahi nuux markuu ashtakooday waxay yidhaahdeen habaarkana wuu raaciyey ilaahu kuwan xaaq buu yidha waxbaa ka tegin laakiin nebi maxamed wuu ashtakooduun bay yidhaahdeene muu raacinin in ilaahay subxaanahu wa tacaala tirtiro ee waa sugay haddii nebigii mar dambe soo bixi lahaa hadda calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynayaa ashtakada qayb badan inaynu ku yeelan lahaynu wixii uu nebi maxamed ka ashtakooday inay tahay ficilka aynu samaynayno bale waxaynu odhan karnaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa xanuunadii umamadii hore ku dhacay daa'ul umam hore waxaa ka mid ahaa ahlu kitaab isagoo ilaahay ka warramaya wuxuu yidhi ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وحكم دبا إلى هيدي أهل كتابك كوا أميين وحمقرتا عامة آيات كهورا كوا دي علماء دي منافقين تو دبا إلى هيك كورمي وحسي إلى هيلي كوا عامة بكم ده ولا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن كتابك كجرنين لكن أماني فقط أمنيده من تمنى جعل كوالد وح جعل هذا قفكو تمنيه كذبك يبنتنا والله يراهدا قراءتنا والله يراهدا مفسرين تنصدق دبا وكفسران ميدان قرآن كجرنين إلا كتابك الله صادريان كهيسنين أمنية إنه إذا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات يا وحلمده نحن أبناء الله وأحباؤه kuwo haysta uun annagu ahlu kitaab baanuna la cadaabi maayo muslimkana qaar badan baa maanta halkaa taagan waxaa ka mid a bay culammadu leeyihiin ilaa amaani istithnuu mar kastaba waxay leeyihin waa munqatice midaan kitaabka ka haysanin been abuur mooyaane wax kale amase qiraa'o mooyaane aan wax kale ka haysanin ilaa idaa tamanna shaytaanu alqaa fii umniyati qiraa'o oo wuu akhriyaaye dheef labaad kuma leh
وسيدا إنه بدنا هاي إن قرآن كنت المساجد فرسنا آخرينه ولي بعد قصة قنعسة ما أنت مارك تاي خير بدننا تسميسي إلا قرآن كيف تخري ذي لكن أن حد كلي يدف كلا كل هين وإنهم إلا يظنون بإله كتل المامي سبحانه وتعالى أيها الأحبة مسلمين تفوقانشية هي إلهي كتاب كيسا كفوقادين بعد كي يابس هداد محكمة هودا تكتو آيات قرآن محكمة الباب كيدا كو قرآن بل محاكم الصومالي ودا صويغا آيات قرآن كو قرآن يكو تالو وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل وهو يحكم بالقانون الهندي والفرنسي الباب كو حكو قرآن إياه هدا هدادك حكمتان كو حكم عدالة آيات قرآن وعنوان كدقان إياه وحسي وحكو حكومة وإنديال باينال كود إيو قانون كي فرانسيسكا إيو وحلم يدبو وحكو حكومية halka uu hijraanka ama guuritaankeenu meeshu gaadhay waxa ka mid ah muslimka wadanadiisa waxa kitaabka quraana waxa loogu dhaariyaa inay khilaafayaan weliga wax saa u dhaarta maaragta kitaab dastuur la yiraahdo meesha la keenaya oo quraanka waxa ku qoran khilaafkiisa ku qorayay markaas la leeyahay quraanka ku dhaaro inaad isaga khilaafayso ka raacaysid waa muslim sida la sheeganayo inaad ilaahay kitaabkiisa ugu dhaarato inaad khilaafaysaa waa meesha muslimku gaadhay markaa inuu ilaahay kitaabkiisa dhaarku ugu xagaf siinayo waxa uu dhaaranayaana ay tahay inaan intaan isaga khilaafo kan kale dhinac yaalla inaan qaadanayo ayuu waliya bilowgu maraya ayuha alxibba waxaan leenahay nolosheenna dhan kasta aynu ka eegnaba haddaynu tijaaradeenna eegno waa ribo iyo qish iyo qurun qadhaadh midhan haddaynu saynu u dhaqmayno eegno xukunka quran maaha iyo dowladda sare waa nolosheenno dhan buu qur-aanku ka maqan yahay in badan oo inaga mid a nolosheenno dhan buu ka maqan yahay halka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii la weydiinayay dhaqankiisii kaana khuluquhu lqur'aan bay ku tilmaamaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu وقرآن كبيت المامس يعني هدات الربطه واد ورسنا يسسدوه رغم جري النبي عليه الصلاة والسلام ده كتاب رب العالمين وصعنا يا ابو هابيل هذا كتابك كم بكون رغمي أيها الأحبة قرآن كوحين وقبها هي مركب برشة الفاذ ذي سقرا ماها يسد الله أخري قرآن نبرنه وحين وقبها هي نسفي عن الدراسينه وإلهي ما كل هضلي سبحانه وتعالى يوحكو شيء يمشي أدبر العيد إمام مسلم في صحيحه وحكو صاري عمر بن الخطاب أيا وحو لكل مي نافع بن عبد الحارث نكي لورنشري نين مركا مكة يمالها مضحوقاها مركا سوحكو من استعملت على أهل الوادي والمقالة دي ياد مضحوقا صادق تيبويري وادي كان كيمية فقال ابن أبزة أبو يري نين ابن أبزة الله يراهضه أيان مقالة دي مضح وقدق أبو يري عمر ابن أبزة هنمركا وقرن واي صحابة دي يرقي وويناي ويقاني ماها ومن ابن الأبزة أبو يري ورني كانت شيء سواكما قال مولا من موالينا وانين مولياش يدي كمده دادكي قاشنبور تنالها يا الحرية نين كمده ويان بولي عمر مركز سؤال نوع من استغراب كتشربه ويديه وحليه فاستخلفت عليهم مولى وانا منك قريش هديه ودرقي بعد مولى بعد مضح وقصادكتي قال انه قارئ لكتاب الله ان كان مضح ذا وقد قيبولي نافع وان اخري الهي كتاب كيسا قارئ لكتاب الله يعني عالم لكتاب الله بلوجيده وان الهي كتاب كيسا يقانه وإنه عالم بالفرائض بيري ولبا علمك فرائض كان سيجارة ويقانا علمك دحلك مركز عمر جوابي نينك يو اسغو اسغو يفكرد نينك كان ان نمنكي اسبيدايي مولا مدح لوغا دغو اسغو عمر سغيبو وحو يري وحان مقلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وله إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي سبحانه وتعالى كتابك كان
dad buu ku kor yeelaa qaarna waa lagu duleeyaayo hoos baa loogu dhigaa dad buu ku kor yeelaayo kuwa rumeeyey ee raacay ee ku dhaqmay kor bay noqdaan ilaahay baa kor yeela kuwa meeshaa iska dhigay boodhku kitaabkoodii fuulay ee dan ka yeelan waaye ka tagana waa lagu duleeyaa buu tilmaamaya ayuha alaxiba kitaabka kani iyadoo nebigii dadka u fadli badnaa ilaahay ku soo dejiyey bishii ramadaan ee ugu fadli badnayd la soo dejiyey habeenkii laylatulqadriga ugu fadli badnaa la soo dejiyey khayru umma lagu soo dejiyey ummadda tanna waxa u khayr badan baa la yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan ninka qur'aanka barta xadiidkan inta badan dadku waxay u fahmaan marka la yidhaha ninka qur'aanka barta alfaadiisa ninka barta nacam waa ka mid laakiin lafdiga waa inuu ku gaadhsiiyaa muhiimadda looga dan leeyay ugu weyn oo ah in lagu dhaqmo la fahmo kitaabka la garto kaasaa cilmiya inaad akhriyi karto qura waa bidaayadii waa halkaad ka bilaabaysay laakiin tacallumi alqur'aanku wax weeyaan kitaabkan isagaa daliil ku filan wax kastoo nolosha ka mid ah shubahaad iyo shahwaad iyo khuraafaad iyo wax la wadoo dhan isagaa ku filan nebi maxamed gaaluu la hadlayay ilaahay ma odhan dadka intaad diinta ka dhaadhicisa kadib qur-aanka u akhri dadkeena imika haddaad tidhaahdo war dadka ha la islaamiyo wuxuu ku odhanayahaye wixii loo sheegayay baan la garanayn war qur-aankan baa loo sheegaya ma wax kalea loo sheegaya ilaahay baa la hadlaya adigu warka ilaahay un gaadhsii qur-aankaasaa lagu akrinaya iyagoo dadku gaalo ah dabeetana ilaahay hadalkiisa markay fahmaan bay islaamayeen adiga falsafo kaagama baahna wuxuu u baahan yahay qofkan in qur-aankan la gaadhsiiyo saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay waxaa idinku fadli badan ciddii qur-aankan garata ee dabeetana dadka barta buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka iyo iqra'uu suurata albaqara fa ina akhdahaa baraka wa tarkuhaa xasra waxaan ku soo koobaya ilaahay kitaabkiisa wuxuu kaga warramay xanuunadaa umamkii hore ku dhacee kutubta la siiyey qaar baa ilaahay sifeeye wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون كوي هوري وحق ذال مريبا إلى هيلي يكوكلو كتابك الدحلي لكن أنكو دقمين ويان قار كتابك الدحلو هايستا xaqiiqadu malaa'in badanoo muslimka ka midi waa sidaytay kitaabkan waynu dhaxallay awowyadan iyo aabbayaashan baynu ka soo gaadhnay naf iyo dhiigtoona umaynan hurinayso oo gurigeenna yaalluun baynu dhalannay adigoo malcaamaddaa lagu geeyey markii aad dhalatay laakiin qaabkaad u dhaqmaysaa wax weeyaan wax walba intaad walaaqdo ayaa waxaad leedahay insha allah ilaahay baa ii dambi dhaafi doonaa ma aha ilaahay baa ii dembi dhaafi doono ayna toobad keentaye haddaad haddana kaa soo horbaxdo wain yaatihim acradun miluhu ya'khuduu baa ilaah yidhi mar labaad baad haddana qasaysaa noloshaadu waa caynkaa ayuha alaxiba wixii ilaahay reer banu israa'iil iyo yahuud ku ceebeeyey innagu kuma ammaanaanayno reer banu israa'iil dadka kama gedisna bale iyagaaba nebiye dhaleen nebi yacquub nebi isxaaq nebi ibraahim nebi yuusuf ambiyo tiro badan oo kaloo ka dhalatay iyagaaba nebiye ku abtirsada haddii laandheerannimo wax tarayso laakiin ilaahay qur-aanka dadkaas aad baa loo ceebeeyey qayb la ammaanayna waa jirtaa qaybtii kitaabkooda raacday waa la ammaanay qaybtii ka soo horjeesatayna ilaahay dadka kaluu ku waaniyey wixii ay samaynayeen inaanay samaynin ayuha alaxiba qur-aankan
haddaynu rabno inaynu guulaysano waa inaynu isaga barannaa waa inaynu macnihiisa fahamnaa waa inaynu ku tadabburnaa waa inaynu ku dhaqannaa waa inuu nolosheenna ka muuqdaa waa inuu dhaqaalaheenna ka muuqdaa waa inuu gurigeenna ka muuqdaa siyaasaddeenna ka muuqdaa waa inuu waxbarashadeenna ka muuqdaa warintaa gaalaa fahamtay hadday inaga fogeeyaan مثلا جلاتسون ninka la odhan jiray William Gladstone waa nin Ingiriis oo raggii cimriga dheer ka mid ahaa 90 meelaha gaadhaan filaya waddanka Ingiriis 4 jeer buu ra'iisul wasaare ka noqday xawaali 4 jeerna wasiirul khazana meelahaas iyo kale uu noqday waxa laga hadlayay muslimka si loo gumaysan karayaa waa qarnigii 19aad markuu Ingiriisku soo duulayay caalamul islaami inuu gumaysto رئيس الوزراء كان انتو ددكيس iyo برلمانكيس ka dhaxadlay buu wuxuu leeyay maadaama هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان وأن لحدا سندود بسياسيها وهو فرجير رئيس الوزراء وفرجير وزير خزانة وحوالي لحدا سندود وكجر سياسته تجربة انت هلاقي وحي سيسي هذا ترنو تلكي وشاقو انت قرآنك قعنت مسلم ككتشرو مرنبا صورة قلما هبولا يوروب إنا يباريك قبصته مسلمين تينا قبصتان إنا قبصنا يسكداي أمان هلي ما ينبو يرين قرآن هايستان يوروبنا أمان نقون ميسو بكا وحو أركا نمضى يوروب يقوميسيك مسلم لبدو بينو كحرين يهي كتاب كان قرآن يلقى دحسارو يا كتابك ما حد كريان سيلا ينوغا دحساريا وين لينو بدله حقيقة ولا ينو بدله كتابك القرآن ولا ينغا ساري دتكن ياي وحبرين وحيبرين أفكودي وحيبرين دقن كودي وحيبرين دقالهودي وحيبرين سياسة دودي وحيبرين توغني مدودي وحيبرين دين لانتودي وحيبرين إننا كواسين الرميسانين يقون يهين qofka quraanka yaqaana waa iska baadoraysa waa wadaad macallin quraana yani waad rabtaa inaad yasto waad tilmaamto nolosha inaan waxba isagu ku lahayn marka waa inaad tiraahdo wadaad macallin quraana ninka kane ama kani xagu ka yimi waa gaalka wax u dhigay Harvard buu ka yimi waa gaalka wax u dhigay idan markii kitaabka nolosheena laga saaray ee maskaxdeena laga saaray walow uu qoraalkiisu masaajidda ka buuxo ومركينو قميستين ومركينو أنبني ومركينو دبو دعني ونفس الشيء لها الجيريا حاكم كي فرانسيس كي هيستي أي وحيري لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية مرنا بك قوليسين ما ينبو الجيريانكا انت القرآن كان آخرين أيان af carabigana ku hadlayaan oo fahmayaan yani af carabiga wuxuu tilmaamayaa de quraanka aad fahmaysa haddaanad af carabi garanaynin de garan maysid marka waa iska buug yar agtaada yaallo markaa noqonaya laakiin isagu wuxuu leeyahay ninkan gaaleed ee Faransiiseed marnaba ma gumaysan karna dadka kan oo kama guulaysanayno inta ay quraanna haystaan af carabina ku hadlayaan maxaa xala فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم بولي وإن القرآن كعربي ماشي كسارة أفكا عربيدنا ذكر نعسينا يلا قبحة فعلا ما أنت عالم الإسلامي أفكا عربيد هذا هذا الشو وحي لمتها إن القرون الوسطى كيمي ننديونا وحبابا دنقرانينين أما هذا وحوقا أفكاليت كاشيك شيكتو وخبير لقدم بيه المها وهدوها في انجليزي في عنكو هذا واحد سواء انما وحبرتي سيو نكسب وحو قرنيا هدو ساف عربي وحكا قرتو هذا لفت هذا وانكو كالصونين انو ادونك ارساق هلي دونه واحد ثلاثة يتي وحلو عنيا ويدافت ايها الاحبة ورئنا مبادية من ربو لكن انا ادو كوبابان دونية رسالة مركة كوبان تاي
معنى هذا أنا لفهمي كرابي في عنتي وحان رباينا ندري هذا وركوي النبي محمد كعوضي إن كبيرين أنت أسئلة لك رك رسومها نبي محمد واتشعل عليه الصلاة والسلام وان ربنا إن طريق السمره وان ربنا إن الرعنه لكن إلهي بو عوضي وحانو كعوضي تلكي وحاو عوضي إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد وحويان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سومالدو هذا وكفي عنت يا خرسكا إن كستودتك واويني ولي أنا يدقنن لكن يركات بالو قد داله هانو الله دتك واوينو إذن كبرت أو فهم أو كل كان يراد سلادي مركو وينادو أنفع الدونا ولا دا وينه هكو أنفعه هذا وينه هكو أنفعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.